يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد waxaan soo gaarnay xalaqadii ugu dambeysay barnaamijkii barashada cilmiga dhaxalka. waa xalaqadii 35aad. waxa aan kaga hadli doonaa baabka la yihahda xamliga. xamligu waxa weeye sidiisaba waa culays ku jira qofka bini aadamka ah calooshiisa. waxaana la yihahdaa xamliga waxaa loo shardiyaa laba shardi. shardiga ugu horeysa waxa weeye waa inuu maaragtay riximka uu ku jiro markii uu dhimanayo qofka maaragtay uu dhaxlayo, walow ha noqoto nudfatan ha ugu jiro. midda labaadna waxa weeye waa inuu ka soocmo oo xayaa mustaqira uu ku dhasho oo bannaanka u yimaado. xamliga iyo maaragtay waxa weeye waa meesha aan soo niri taxaquq xayaati alwaarisi, taxaququ xayaati alwaarisi bacda mowti almuwarisi ima maaragtay mushaahadatan aw xukman. marka hadda waxa weye isagoo joogaa laga mid dhigayaa. waxa aan qaadan doonaa mithaal ay kutubtu maaragtay qoraan sida sabuuradda ka muuqata. qof baa dhintay, waxa uu ka tegay maaragtay hooyadii oo uur leh oo aabihii uur u leh iyo adeerkii iyo xamligii oo maaragtay janiinkii uurka ku jiray ah. marka dadkii waxay dalbadeen in maalkii loo qaybiyo intii maaragtay xamliga uusan imaan ka hor, oo intuusan dhalan ka hor ayay dalbeen. marka maanta masalada ugu horeysa waxa weeye, qeybta ugu horeysa waxa weeye waxaan qadaraynaa in uu dhintay xamligii. marka meesha waxaa joogo hooyadii iyo adeerkii. hooyada maanta waxay qaadanaysaa maalka 3 meelood meel 3 baan ka dhisaynaa. hooyadii waxaan siinaynaa 1, adeerkiina waxa uu qaadanayaa inta soo hartay. marka maanta xamligii waxba ma leh oo waxaan ka soo qaadaynaa isagoo dhintay aan ka soo qaadaynaa. haddii aan ka dhigno inuu joogo xamliga uu noqday wiil, macnaha daa'iman qofka dhintay iyo qofka xamliga waxay isu yihiin walaalo weeye. maanta walaalkiibaa joogo oo rag ah. masaladii sidoo kale waxay ka dhismaysaa 3, ila hooyadii walaal laba gaar ma hayno. 3 ka dhismaysaa. hooyadii waxay qaadanaysaa 1, ma aragtay wiilkiina waxa uu leeyahay inta soo hartay. maanta adeerkii waa la xijaabay oo waxba qaadan maayo. haddii aan ka dhigno inay joogto gabar meydka walaal ah, shaqiiqo ah, maanta waxa weeye hooyadii waxay qaadanaysaa sidoo kale sulus. ayadina waxay leedahay maal kale barkii. markii la isku dhifto waa 6. masaladii 6 bay ka ansaxaysaa. hooyadii waxay iska qaadanaysaa suluskeedii. gabadhina waxay leedahay maalka kale barkiis oo ah 3. maanta adeerkii 1 baa usoo haray. maanta adeerkii 1 baa usoo haray. canaawinta xoogaa aan ka bedela qadka. 3 3 6. maanta adeerki gabadhii adeerka usoo haray 1 baa usoo haray. maanta waxa jooga waxay noqdeen waa wiil iyo gabar, macnaha 2 walaalo ayaa jooga oo meydka la dhashay. mid waa rag midna waa dumar. maanta hooyada sidoo kale waxay qaadanaysaa maalkii 6 meelood meel bay qaadanaysaa ayay qaadanaysaa. hooyadii waxaan siinaynaa 1 baan siinaynaa. adeerkii maanta wax ma qaadanayo, 1 baan siinaynaa hooyadii. adeerkii maanta waxba ma qaadanayo, meeshtii wiil baa soo galay, wax ma qaadanayo. waxa weeye waxa soo haray waxaa iska leh wiilka iyo gabadha meydka walaala ah yaa iska leh. way ka jaban tahay. madaxyadeeda oo 3 aan qaadaynaa. waxaan ku dhufanaynaa aslulmasalahaan ku dhufanaynaa. waxay noqonayaan 18 ayay ka ansaxaysaa. 18kii markii ay ka ansaxdo 3 waxaan ku dhufanaynaa hooyadii. halkeeda 3 bay qaadanaysaa. adeerku dee waxba iskama lahayn. wiilkii gabadhii waxa soo haray leeyihin oo ah 15 lidakari mithlu xadi اlunsayayni
wiilku wuxuu qaadanayaa 10 ma aragtay gabadhina waxay qaadanaysaa 5 maanta waxaa jooga laba wiilaa joogo sidoo kale masalada waxay ka dhismaysaa 6 bay ka dhismaysaa hooyada waxay leedahay suduskii ilaa waxa weeye laba walaalaa joogto hooyada halkeedaan siinaynaa adeerkii maanta waxba ma qaadanayo oo waxa weeye laba wiil baa meesha joogto labada wiil waxa weeye waxaa usoo haray 5 shanta uma qaybsanto 5 baa usoo haray madaxyadoodaan qaadaynaa waxaan ku dhufanaynaa asal masalaha waxay noqonaysaa 12 madaxyadooda oo ah 2 ayaan qaadaynaa waxaan ku dhufanaynaa asal masalaha marka waxay noqotay 12 haddaan ugu dhufanno hooyadii waxay qaadanaysaa 2 ay qaadanaysaa haddaan hooyo ugu dhufanno 2 ay qaadanaysaa adeerkiina wax ma laha wiilashii haddaan lagu shanta ugu dhufanno waa 10 mid kasta 5 buu leeyahay labadaas marka mas'alo waxa weeye waxaa muhiim waan ka soo guurnay asalka hore kan waxaan u guurnay asalkaas kanna waxaan u guurnay asalkaasaan u guurnay inaan qaalin gooni ah ku sameeya ay fiican si iska kee darsamin waxaan u guurnay asalkaas kanna waxaan u guurnay asalkaas waxaa ii saaray maanta 2 gabdhood oo meesha joogo sidoo kale hooyadii waxay qaadanaysaa maalka 6 meelood meel masalada 6 meel aan ku dhufanaynaa gabdhahana waxay leeyihiin waa sulusaan 3 oo ka baxay 6 hoos galaysaa marka hooyadii maanta suduskeeda ha qaadato gabdhihiina waxay leeyihiin uurka waxay noqdeen 2 gabdhood noqdeen waxay leeyihiin sulusaan oo 4 adeerka waxaa usoo hartay 1 baa usoo haray intaan markaan masaladii xalinay ayaa waxaan rabnaa inaan ka samayno jaamico kulminaysa dhammaantood marka haddaan fiirino waa 3 iyo 3 iyo 3 iyo waxa weeye 18 iyo 12 iyo 6 iyo 6 dhammaantood waxay hoos galayaan 18 iyo 12 marka haddaad fiiriso waxaa ka dhexeeya tawaafuq waxaa ka dhexeeya ah sudus macnaha 6 baa wada qaybsato haddaan 6 u qaybino waxay noqonayaan 2 haddaan ku dhufano waa 36 haddaan 6 u qaybino waa 3 haddaan ku dhuftana waa 36 marka waxaa weeye jaamicadii waxay ii noqotay dhammaantood ay ka waxayna waxay noqotay 36 haddaan u qaybiyo masalada ugu horeysa waa 12 tan ku xigtaan qayb waa 12 tan waa tii laga guuray aniga lagama guurin ayadana waxaa weeye 6 haddaan u qaybiyo waa 6 tan waa tii laga guuray 18 haddaan u qaybiyo 36 u qaybiyo 18 waxay noqonaysaa 2 haddaan u qaybiyo tan waa laga guuray 12 haddaan u qaybiyo waxay noqonaysaa 3 waxay noqonaysaa 6 kulli waa jusahmi masalo kasta waan ku dhufanaynaa mid yar baan fiirinaynaa haddaan masalo kasta ku dhufanno halka ugu horeysa hooyada meeshaan 12 bay leedahay 12 6 waxay leedahay 6 waxay leedahay 6 waxa ay leedahay 6 marka waxa ugu yar 6 baa ugu yar haddaan fiirino adeerka waad garanaysaan eber baa ugu yar kulli haddaan ku dhufanno waa eber xamligana waxaa ugu yar inaan ugu dhufanno isagana eber baa ugu yar ayana meesha ku jirta waa ugu yar marka waxaan mawquuf ka dhigaynaa yuuqaf 30 baan marka yaan istaajinaynaa marka xamliga marka xaalad kasta uu noqdo waxa weye masalada way noo habaysan tahay haddii uu xamliga dhinto maalan waxa weeye hooyada waxay qaadanaysaa 12 adeerkiina wuxuu qaadanayaa 24 saas ku imaanaysaa masale kasta way kuu diyaarsan tahay waxa weeye haddii arrintu ay caddaato waxa weeye sidii baad kula dhaqmaysaa halkaasna waxa weeye waxaa noogu dhammaaday xamliga iyo sida loo taqdiiriyo hadduu ilaahay subxaana wa tacaala yidhaahdo waxaan u wareegi doonaa maaragtay manduumada ayaan fiirinaynaa maaragtay raxbiyaha baabka aan ku jirna waxa uu ka yidhi baan dib u eegeynaa qaala almusanifu raximah اllahu tacaala saaxibu raxbiya waxa uu leeyahay wain yakun fii mustaxaqi اlmaali qunsaa saxiixu bayinu اlishkaali
faqsim cala alaqali walyaqiini taxdaa bixaqi اlqismati اlmubiini. waxa uu leeyahay musanifka raximah اllahu tacaala abwaabtii aan ka soo hadalnay asagoo sheegay waxau leeyahay wain yakun haddii uu yahay fii mustaxiqi اlmaali maalka midka mutaystay haddii uu yahay khunsaa mid labeeb ah saxiixun oo weliba ishkaalkiisa uu macnaha sax yahay bayinu lishkaali ishkaalnimadiisan ay caddahay oo khunsa uu noqdo meel aan u barax tirnayn faqsim maalkii qaybii tarikadii waxa uu laga tegey oo maaragtay asaga iyo dadkii la dhexlaya waxaad u qaybisaa cala alaqali inta yar iyo walyaqiin inta la hubo. madhabka shaaficiyada raximah اllahu tacaala waxa weeye waxay leeyihiin waxaa loola macaamulayaa asaga iyo dadka la dhexlayaba inta ugu yar baa la siinayaa, inta kalena waa la reebayaa ilaa ay arrintu caddaanayso. faqsim qaybi cala alaqali meesha ugu yar iyo walyaqiini la hubo taxdaa waad ku guuleysanaysaa bixaqi اlqismati qaybinta dhabta ah almubiini ee cad. marka waxa uu leeyahay halkaa wuxuu kaga baxay labada beyt khunsaha. waxa uu leeyahay mafquudkii soo galay wuxuu leeyahy waxkum ku xukun cala almafquudi kii la waayina xukma alkhunsaa khunsihii xukunkiisoo kale sii. meeshii laakiin aad ka dhigaysa khunsaha mid lab iyo mid idig, halkan waxaad ka dhigtaa mid nool iyo mid dhintay. in dakaran kaana ha ahaado macnaha dakaran mid lab aw amase unsaa mid dhidig. beydkaasna wuxuu kaga baxay raximah اllahu tacaala maaragtay mafquudkii ama kii la waayey. waxa uu soo galay xamlig. waxa uu leeyahay wahaakadaa sidaasoo kale ku xugun macnaha sidaasoo kale xukmu dawaati اlxamli kuwii macnaha uurka lahaana xukunkaasoo kale sii ayagana. oo waxa weeye fabni ku dhis masalada cala alyaqiini inta la hubo iyo walaqali inta yar macnaha ku waxay buu leeyahay. marka halkaas waxa uu kaga baxay qeybtii ahayd raximah اllahu tacaala dhaxalkii taqdiirka ayuu kaga baxay. waxa uu rabaa marka hadda inuu ka hadlo waxa la ihahdo miraasu algarqa walhadma walxarqa kuwa macnaha maanshooday oo biyo ku dhintay ama guryo ku dumeen ama macnaha dab ku dhacay dadka isku mar dhintay oo la garagaran waayey qofkii horeeyey iyo qofkii dambeeyey. marka wuxuu leeyahy musanifka raximah اllahu tacaala wain yamut haddii uu dhinto qowmun qowm hadday dhintaan isdhexlayey bihadmin dumid ay ku dhintaan guri kusoo dumay ama meel ku duntay aw qaraq ama biyo ay ku maanshoodaan oy biyo galaan aw xaadiثin ama shil uu ku dhaco shilkaasoo cama aljamiica dhammaantood macnaha maaragtay gees ka wada maray kalxaraq waaba sida gubniinka oo kale oo dadkii dhan baa meel ku gubtay. walam yakun yuclamu aanan la ogeyn xaalu saabiqi midkii horeeyey xaaladiisa aan la ogeyn oo qofkii hor dhintay iyo qofkii ka dambeeyey aan la kala garanaynin falaa tuwaris ha dhaxalsiinin zaahiqan mid naftiisa ay tagtay oo dhintay min zaahiqin mid kale oo dhintay ha dhaxalsiin. labada qof isma dhexlayaan sababtoo meesha waxaa laga waayey shardigii ahaa waxaa laga waayey maaragtay taxaquq xayaati alwaarisi bacda mowti lmuwaris baa laga waayey in qofka uu ka dambeeyo wax dhexlaayo oo markuu qofka hore dhinto qofka labaadna uu joogo ayaa meesha laga waayey. marka seen yeelayna ha dhaxalsiin markuu yidhi wacuddahum ku tiri buu yihi kuwa ayaga ah kaannahum ajaanibu inay yihiin dad ajaaniba oo aanba rixim iyo maaragtay qaraabai wax ka dhexe aysan jirin oo qof kasta waxaa dhexlaayo dadkiisi baa dhexlayo. wahaakadaa sidaasaa alqowlu sadiidu qowlka toosan uu yahay assaa'ibu ee maaragtay gefka aana ku jirin qowlka wanaagsan waa sidaa. marka waxa weeye haddii dad ay hal meer kuwada dhintaan wiili aabihii labadooda la kala garan waaye kii horeeyey waxaa weye labadooda isma dhexlayaan ee qof kasta waxaa dhexlaya dadkii u ka tegey. waqad ata alqowlu musanifku wuxuu leeyahay waxaa yimid qowlkii manduumadii ama tixdii gabiga way timid calaa maa shi'naa sidii aan doonabay ku timid buu leeyahay oo min qismati almiraasi dhaxalka qaybintiisii ah. id bayanaa maxaa yeelay waan soo cadaynay buu ku leeyahay calaa dariiqi ramzi tusaalayn baan ku soo cadaynay buu leeyahy walishaara farfiiqid baan ku soo cadaynay mulakhisan anigoo soo gaabin ama mulakhasan ayadoo lagu soo gaabiyey biawjazi alcibaara alfaad midii ugu gaabnayd oo ugu yar ayadoo lagu soo gaabiyey
marka intaa markuu sheegay ayaa waxa uu leeyahay siduu kitaabka ugu bilaabay xamdiga ilaahi subxaana wa tacala wuxuu leeyahay faalxamdu lilaahi ilaahi baa mahad leh cala atamaami ay calaa tamaamihi dhammaystirka uu noo dhammaystiray kitaabka ayuu mahad ku leeyahay buu leeyahay xamdan ilaahay waxaan ku mahadinayaa buu leeyahay mahaddaasoo kasiiran badan tama oo dhammaystiran oo fi dawaami oo soconaysa weligeedba macnaha jiraysa as'aluhu allah waxaan weydiisanayaa buu leeyahay musanifka raximah llahu tacaala as'aluhu allah waxaan weydiisanaya buu leeyahay alcafwa dhaafid can itaksiiri wixii aan ku gabod falnay oo ilaahay naga dhaafo subxaana wa tacaala anigana ilahay waxaan weydiisanaynaa wax alla wixii aan maaragtay duruusta aan bixinaynay aan gaf ku galnay asna inuu ilahay subxana wa tacala naga dhaafo wa khayra maa waxaan su-aalinaya buu leeyahay shay kan ugu khayr badan oo na'malu aan rajaynayna fi lmasiiri markii la laabto oo loo laabto ma aragtay ii sheeg maalinta qiyaamaha ayuu oola jeedaa musanifka raximah llahu tacaala wa kafra ilaahay inuu macnaha astura ayaan weydiisanaynaa maa kaana min adunuubi wixii ahaaday dembiyaal ilahay inuu naga dhaafo ayaan su-aalinayna weli naga asturo iyo wa sadra inuu naga qariyo maa shaana wixii xumaaday oo min alcuyuubi ceebyaal ah wa afdalu الsalaati ammaan midda ugu fadli badan watasliimi iyo nabadgelyo cala الnabiyi nebigii dushiisa ahaato nebigii almustafaa la doortay alkariimi ee macnaha maaragtay deeqsiga ahaa muxamadin ahaa khayr اlanaami khalqiga midka ugu khayr badan ahaa alcaaqibi ee weliba lagu qatimay kii qatimay ahaa macnaha caaqibka ahaa alladii laa nabiya bacdahu nebi kalena uusan ka dambeynin wa aalihi aalkiisa macnaha ahaato macnaha ammaantaasi alquri ee macnaha sharafta lahaa ama maaragtay wejiyadeedu iftiimayeen dawi lmanaaqibi ee wanaagga u saaxiibka ahaa wa saxbihi iyo asxaabtiisa allaha yeela macnaha alafaadili ee macnaha wanaagsanaa ee fadliga lahaa alakhyaari ee macnaha akhyaarta ahaa assaadati macnaha ee ma aragtay soo hogaamiyey macnaha ajyaalkii hore ummaddii hore alakaabiri alamaajidi ee macnaha haddana sharafta dhammaystiran lahaa alabraari ee baariyada ahaa nusqooyinka qaarkood waxa ku taala wasaxbihi alamaajidi alabraari asafwati alakaabiri alakhyaari marka halkaa waxaan kusoo gebagabaynay kitaabkii raxbiyaha iyo barnaamijkii barashada cilmiga dhaxalka waxa weeye sida aad maaragtay la socotaan abwaab baa jiri doona hadduu ilaahay subxaana wa tacaala yidhaahdo aan maaragtay hadduu ilaahay subxaana wa tacaala yidhaahdo aan dib kaga dari doono sida baabka la baabu rad waxa uu ka soo horjeedaa cawlka atarika wax yar baan ka taabanay habka tarikada loo qaybiyo iyo marka wasiyada sida macnaha loogu daro waxaan kaloo ayadana aan insha allahu tacala haddii jaanis aan helno aan maaragtay ku dari doonaa baab la yihahdo alqiraad qiraadkuna waxa weeye xoolaha iyo guryaha iyo beeraha sida loo qaybiyo ayadoon lacag loo bedelaynin atakharuj baa haddana maaragtay geli doonaa iyo baabka la yihahdo baabu dhawi larxam shantaas macnaha maaragtay abwaab ayaan maaragtay biidn illahi tacala haddaan jaanis helno aan geli doonaa telefoonkana waxa weeye sida kor ku xusan waxa weeye eber 24 9 hal 8 laba 6 hal 7 emailkana waxa weeye waa alrashiid 44 hotmail.com haddii ilaah yidhaahdo cid alle ciddii wax mulaaxado ah ama waad garanaysaan bani aadamka waxa weeye markuu u bandhigayo ummadda ama caalamka o dhan waxaa weeye bidaacadiisa qof ay raqiis tahay oo maaragtay aada iyo aad maaragtay u liita ayuu yahay marka dadka wuxuu ka dalbanayaa si haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala jaanis kale noogu suuro geliyo aan gafafkii aan ku dhacnay ama khaday aan ooga nabadgalno in aan muxuu ahaa wax alla wixii mulaaxadaa qofka haya ama iisoo gudbiyo sida aan ku qoray telefoonkayga iyo emailkayba midda kale waxa weeye hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala yidhahdana abwaabtaas aan sheegay oo 5 baab ah waan dhammaystiri doonaa hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala naftana u gaarsiiyo waxaan halkan uga mahad celinaynaa dhammaan dadkii culimmada ahaa ee cilmigan aan ka qaadanay oo macallimiinta noo ahaa oo ma aragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ma aragtay ka waraabiyo jannadiisa
maaragtay camalkooda in ilaahay ka aqbalo annagana waxaan ilaahay su-aalinaynaa in uu nagu arsuqo ikhlaas maaragtay nagana aqbalo maaragtay isheeg camalkan aan gudbinay sidaan idiin sheegayo 6 bilood ayaan wadaa oo marba maaragtay aan maalin duubayey oo duruufahan maaragtay iska badan yihiin sidaa darteed waxaan kusoo gabagabeynayaa in qof alle qofkii hela mulaaxado barnaamijka youtube-kan uu ku jiraa kolley telefishinkan t v 4na waa laga sii daayaa inuu iisoo gudbiyo saas baan maaragtay sababtoo ah ma jiraan arday aada u sharxayso maadada oo kaala niqaashayo oo qawaaciddii markaad tadbiiqinayso haddii kaa dhaco qalad yar kugu baraarujinayso waxa weeye waa qof keligii wax duubayo insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in aan maaragtay ka faa'iideysan doono mulaaxadaadkiina iyo waxa aad isoo qortaan oo aan ka bedeli doono haddii jaanis aan u helo mar labaad in aan maadadii dib u duubo waxaan idinkaga tegayaa fii amaan illaahi iyo maaragtay waxaan idinkaga tegayaa oo maaragtay inaan arrintaas tawsiyada aan maaragtay ku dardaaranno ilaahay subxaanahu watacaala dembiganaga iyo dembiga waalidkanaga iyo macalimiintanada iyo dadkiina xolan baray allah dhaafo bismi illaahi الraxmaan الraxiim wاlcasr ina alinsaana lafii khusr ila aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati watawaasaw biاlxaq watawaasaw biالصabr wajazaakum allahu khayra wassalaamu calaykum waraxmat اllahi tacaala وبركاته. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه